waa kuma ninkan sawirkiisu maalmihii dambe baraha bulshada Soomaalidu ku faafisay haba ugu badnaadaane Facebook iyo TikTok. dadka qaar waxay aad ula yaaban yihiin ninkan sawirkiisa la wareejinayo, dadka qaarna markoodii ugu horeysay ay arkeen, halka kuwa qaarna ay garan waayeen sawirka ninkan. balse xog kooban oo ku saabsan ninka sida weyn Soomaalidu u hadalhayso si inta taqaan iyo inta aan aqoonba ay wax uga ogaadaan muuqaalkan ayaan si kooban ugu eegi doonaa. sawirka idin muuqda waa Robert Ernest Marley oo si kooban magaciisa loogu yeero Bob Marley, waxa kaloo loogu yeeraa boqorka ringaha. haddii aan si faahfaahsan uga hadlo ama aan waxuun idinkaga fahansiiyo waxa ay tahay ringaha, waa nooc ka mid ah muusiga oo asal ahaan ka soo jeeda Jamaica. waxaa la wada qirsan yahay in Marley uu ahaa hormuudkii ama ninkii hogaaminayay ciyaarta muusiga ringaha. Bob Marley waxa uu dhashay 6 Febraayo 1945 waxaana uu geeriyooday 1 bishii May 1981 isagoo ay da'diisu tahay 36 sano oo kaliya. Bob Marley waxa uu iibiyay 20 milyan oo rikoor intii uu noolaa. erayadiisa isaga ayaa qoran jiray, laxanka iyo muusigana isaga ayaa ku laran jiray, isla isaga ayaana ku luuqeyn jiray. taasi waxa ay sahashay ama ay soo dadajisay inuu adduunka si fudud magaciisa ugu baaho, fankiisuna uu noqdo mid caalami ah, isagoo oo noqday fanaan saameyntiisa leh, sidoo kalena masraxiyad cajiib soo bandhigay. waxaa la sheegaa in hormuudkiisa dhanka fanka ay mas'uul ka ahaayeen fariimaha culus ee ay heesihiisu xambaarsanaayeen. waxa uu adeegsan jiray erayo aad u macaan, haddana si fudud qofka dhageysanaya uu u fahmi karo. si kooban waxaa la dhihi karaa gabi ahaanba fankiisu waxa uu xambaarsanaa fariin. Marley waxa uu caan ku noqday astaanta Rastafariga, waana caado ay aaminsan yihiin in Afrika ay tahay halka ay wax walba asal ahaan ka yimaadeen. waxaa kaloo loo arkaa calaamad caalami ah oo muusiga Jamaica ah. Marley waxa uu muusigiisu mideeyay dad kala af ah, kala diin ah, kala dhaqan ah, iyo xitaa kuwo aan isku dhiig iyo isku isir toona ahayn. dulmiga dunida daashaday ayuu si weyn ugula diray fankiisa, waxaana uu helay bulsho u heelan oo fariimihiisa gaarsiisa meel kasta. markii aad doonayso inaad wax ka ogaato cunsuriyadii uu la kulmay Marley iyo qaar ka mid ah xaqiiqooyinka, waxaa si dhab u arkaysaa xanuunka uu soo maray noloshiisa. asal ahaan waxa iska dhalay aabe Ingiriis ah iyo hooyo Jamaican ah. waxa uu dunida kala kowsaday dhibaatooyin kala duwan. aabihii waxa uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii badda ee dowladda Ingiriiska, waxaana xanuunka nolosha iyo ciilka tusay Marley markii qoyskii uu ka dhashay aabihii ay ku amreen in uu dayriyo oo uu isaga tago naagtiisa madow ee Jamaicanka ah iyo cunugeeda. waana uu isaga tagay, waxaana dusha u ridatay mas'uuliyadiisa hooyadii oo noloshiisa qayb weyn la ka qaadatay ilaa uu magaalka geeskiisa ka galay oo uu xamaashay. waxaana safarkiisii adkaa ee noloshiisa uu ka tuuray dalka Mareykanka, halkaas oo la dhihi karo waa meesha kaliya ee indhihiisu ku furmeen, wuxuuna ku soo ogaaday dhibaatooyinka takoorka ee dunida daashaday. hotel ku yaala Mareykanka ayuu nadiifiye ka ahaa, isagoo dhulka tirtiri jiray si uu shilimaad yar u helo. inkastoo uu isaga soo tagay kadibna uu dalkiisa ka aas-aasay koox muusig ah, waxa uu caan ku ahaa oo uu xiran jiray dhar casaan ah, dahabi ah, cagaar ah iyo midabo kale oo madowga uu ku jiro, kuwaas oo astaan u ahaa dhiigga, hodantinimada, dhulka barwaaqada ah iyo Afrika. erayadiisa iyo muusigiisa ayaa dad badan ka caawiyay inay aad u qiimeeyaan dhaqankiisa oo ay iska ilaaliyaan midabta koorka. jabkiisii, halgankiisii iyo sheekooyinka Marley laga qoray ma ahan kuwa muuqaal lagu soo koobi karo, waana badda oo kale. waxaana sheeko dheer ah waxa loo yaqaano Rastafari iyo sidii uu aaminsanaa. sida aad mar walba ka aragto sawirka astaanta u ah Bob Marley, waa sawir isaga oo afka kula jira xashiishad weyn. waa maxay sababta uu Marley u cabo xashiishka iyo waxa uu ula jeedo? Bob Marley waxa uu si daran u cabi jiray xashiishka sababtoo ah waxa uu ku dhaqmi jiray diinta Rastafariga, taas oo isticmaasha janga sida ay ugu yaraanna ay tahay karaamo. Rastafariyiinta qaarkood ma isticmaalaan gabi ahaanba xashiishka, balse waxa ay kaga dhow yihiin balwadaha kale. markana haddii aanu eegno dhimashadii Marley, waxa uu sababsaday sida laga daragsan yahay aragtidiisii dheereyd ee ka marnayd dhibaataynta iyo luqaafada dunida daashatay. waxaa dhimashadiisa lala xiriirinayaa dhowr arrimood ama meelo kala duwan. inkastoo sida caadiga ah la yiraahdo waxa uu dhintay kansar, haddana sheekada dhimashadiisu waa ay ka weyn tahay kansar oo waxaa lagu dilay shirqool xeeladaysan oo guulaystay. hal aragti oo caan ah ayaa sheegaysa in Marley ay dishay CIA-da Mareykanka. waxaa la sheegaa in CIA-du sameeyeen isku dayo fara badan iyo tallaabooyin kala duwan oo dhowr ah oo ay ku doonayeen in ninkan ku qaarajiyaan, balse ugu dambeyntii Carol Colby oo uu dhalay agaasimihii hay-adda CIA-da ee William Colby ayaa Marley isagoo isaga dhigaya wariye waxa uu siiyay kabo kuwa kubadda cagta lagu ciyaaro ah oo markii horeba lagu soo jaangooyay cagtiisa,
kabahaas oo ay ku jirtay cirbad sun ah taasi oo Marley mudday dabadeedna sababtay in kansar uu ka qaado ugu dambeynna uu geeriyoodo sharqoolkaasi. Bob Marley waxa uu guursaday oo u dhaxday xaaska lagu magacaabo Rita Anderson waxa uu ku guursaday magaalada Kingston ee caasimadda waddanka Jamaica 10kii bishii Febraayo 1966 isagoo oo 21 jir ah. waxa uu ifka kaga tagay sida la sheego 11 caruur ah oo intooda badan fanka ku jira waxaaba la dhihi karaa waxa ay ka dhaxleen aabahood. intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalka. haddii uu soo gaaray inoo la garay muuqaalka sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee. mahadsanid.